maxamed cabdi oo lagu naanay saxafiis waa nin ay da'du ka daba timid oo ku dhawaad 100 sano jira sida ay sheegayaan dadka garanayay muddada dheer isagoo yar ayay qoyskiisa isku fahmi waayeen noloshii guriga waxa uu doortay inuu kaligiis noolaado degmada Xamarweyne ayuu habeenba gidaar dhigtaa joodari ama firaash ay ku saacideen dadka ku tixgelinaya waayaha adag iyo waayeelnimada xafiis dabeecadaha uu leeyahay waxa kamid ah inuu gacan naxariis loo u fidiyo caruurta haysa wadadiisii mugdiga ahayd balse ay waayuhu badeen waana waxa kaliya ee uu uga duwan yahay ragga sidiisoo kale ku gaamuray darbi seexadka darbi markaan bilaabay adiga taamada darbi markaan bilaabay adiga taamada أنا موري سنة سنة أقدمان. محمد كأدر درجيت مكة بلابيسي كل الظروف بكوجيسي الظروف تاس كوسة تي معناها من نوع شيء كذا. والله كم شيء أدري أنا ليش اسمها هاي. أيه. فقط أدري صبوا سنة. أركع قويس كين. أيه. أو عينا من لا ليش شيء. قبل كبير بلاد. أيه. والله راشة ما هاي كذابي. odayaasha xaafadda ayaa tilmaamaya inuu ahaa weligiis nin nabadda iyo in la isla noolaado ogol waana hab dhaqan ay adag tahay in lagu arko dadka aan nasiibka u yeelan in ay ku barbaaraan jawi xasiloon iyo nolol nidaamiyay da'diisana hadda inay nooshahay xataa ma malaynayo sababtoo ah waa nin caalamiinta badan oo ahaa saasoo hadda ilaa hadda xoogaa isku hayaa maahane da'diisa haddii la fiiriyo waa 110 jir 110 sano wuu jiraa ninka xafiis la yiraahdo taariikhdiis intaan ka garanayo sababtoo ah anigoo ilmo ah ana hadda 60 sano jira anigoo ilmo ah waqtigaas wuxuu ahaa nin 60 jir camal oo ahaa marka taasaan kaga qiyaas qaadana marka ninka aad iyo aad u dhiban yahay waa ogtiin qaboobaha hadda haweenkii dhacaya dhibaatooyinka habeenkii jira meel oo u hoyda malaha wuxuu la seexdaa eeyo ciyaalkii darbijiifka ah yaryaraha soo koray oo ku soo weynaaday waay xafiis nin macruuf oo la yaqaan waay xafiis haddana wuxuu ku fiican yahay dadka kale wuxuu kaga fiican yahay oo lagu yaqaanay nimankii banaadir iyo ku soo koray lagu yaqaanay wuxuu kaga fiican yahay waa nin ammaanka jecel dadka la gardareysta uu heeliyaa laga gardaran yahay ama laga awood badan yahay ayuu u heeliyaa in la baado dadka awood loo sheegto dadka nacab waa tan kale hadda nin oday oo noqday nin waayeel oo noqday weli wuxuu ku sii fiican yahay asagoo waayeel ah wixii la siiyo oo nolol ahaan loo siiyo dadku ku sii celiyaa oo u qaybiyaa ilmaha yaryarka caruurta darbijiifka ah ee ku nool degmada Xamarweyne maxamed cabdi waxa uu ugu jiraa booskii aabaha waxayna isticmaalaan marka ay la joogaan kelmadaas qiimaha badan ee aysan nasiibka u yeelan kani waa Cabdilaahi oo inta badan ka agdhow xafiis ana shan sano waxirnaa waxa ku jira kuleej ayaa ku jiray markaan kuleej galay aabay guriga oo joogo laakiin ka tabaxay waa arka aabay darbi jiifo hadana xaaladina waxa waa inaan garab helno oo shacabkan garab ka helno marka adiga aabba xagee ku nooshiin yaa cuntada iyo caaw wallahi ata dadkan cuntada noo keenan هذه حاجة ساعة. أنا نعفيرهم. مال أو دربية. أبي أنت وجفا. Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho waxa ku nool dad aan guryo lahayn oo noloshooduna aysan lahayn tub ku jihaynaysa mustaqbal wanaagsan waxayna iskugu jiraan caruur iyo dad waaweyn kuwaas oo u adkeysan waayay duruufaha adag dawladda ayaa xarumo dhowr ah u sameysay dadka darbijiifka ah si ay ugu noolaadaan inkastoo ay weli baahidaas taagan tahay maxamuud soo faysane warbaahinta qaranka Muqdisho.